haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaan ku soo maranayana imtixaan kalow inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bisharri waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo wuu soo maray isagoo xoog badan oo sulda iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya wuu soo maray waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaanaad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan uu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cidda hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaaf haddii adeerkaa ku daba galo bal aduu qiyaas adeerkaayo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo u leeya ka yar annagaa dhallayoo waa adeer baanu ahay waxba kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaaski kaa taago ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareento wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreena markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramayaan bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leennuun inaan maanta ka hadallo altasbiix faqad tasbiixu erayga macnihiisu waxa weeyaan subxaana allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaa bay odhan jireen culammada soomaaliyeed ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tanziihu rabbi can innaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama alxamdu lilaahi baa markaa ilaahay aad kamaalka u sugayso ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisiyo ay waxaa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkii iyo dadkii ugu dhowaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyay fii suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fastac bima tu'mar waacrid cala almushrikiina inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya
alle ammaantiisa وكن من الساجدين انت سجودaysa ilaahay fooda dhulka u dhageysana ka mid noqo culimadu waxay yiraahdaan maxaa diiqu sadri inta laga waramay loo yiri fasabbih waxay yiraahdaan huwa tiriyaq wa dawaa yustashfa bihi waxa lagu caafimaad waxa way markii xanuunka loo sheegay dhibta haysata ayaa ilaahay yiri sida yeel sida nabiga la yiri yeel bay culimadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado ولذلك القرآن كما يلبضا وحق صاروري قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أما فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا آيات بدن بصاروري والنبي عليه الصلاة والسلام دذلك والدين توهيي ينبت لقله ريمي يعلينك ودريمي وضط المامي إذا وحي علماء ليه عديدي وحا لغا بخا لابتو قفكو أي صافي النقطة قلبي سيطمئنان كقلا راحة البال والنفس وكهلا ومسائل كان إلهي الماضي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أما التصبيح إلهي يوضو التصبيح سطه إياه أدقو أنت سجود سنة ما أنت تكنسه كبيرة قرآنك مركا ميل كستا أما ميلها وقبضا النبي قال فريو إن دباتوين كاسي لكل ما يوحى لفريي أما الصلاة هي التصبيح نبينا عليه الصلاة والسلام وكحديث الصحابة ويوريني أن كنت الماميو إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة هدي وأرهن نبقليو هدي ورور وخدعه هدو وح مشاكل الله كلمه بادر إلى الصلاة بالليل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة دو دقدق جري صلاة دو دقدق جري سيدا وقت بقى إلهي القرآن كوحكوت المامية قرآن تربضا والصبر هي تصبيح شيئا فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فصبح وأدبار السجود في سورة قاف في سورة غافر إلهي وحليه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة طور إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صور كائن آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وطل ماميا وحا وكلكل ما يددكاسي إنا يهين وحا عديدي قلينيا waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu ciriiri dareemi doono dabeetana waxa loo tilmaamay sabir tasbiix sana ama tuko suwar kalena iyadoo salaada iyo sabirku isku xidhay wastaciinu bisabri wassalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxa kaloo soo arooray نبي الله يونس ذنون وطلقي مركو نبكر كل بيكتك يسوى عريسا وموذا ينين إلهي وقبر لسي مفسرين تلمامان وده بيتنا بدتكي دون فولي سكستبها النقطة إساقا سهمي وكودعي دون تهلا خفيفية اللي يري نبي الله يونس دون تهلا طوري dabeetana wuu cunay ama iltiqaab uu libqiyey nimiri